waxyaabaha runtii dumarka muhiimka u ah ama baahiyaadka ugu waaweyn dee dabcan dumarku ka cawdaan waqti la'aanta ka mid ah marka waqtigu ma aha inuu qofku waqtigiisa ugu badan geliyo ma aha qofka laakiin yani mararka qaar waxaa dhacda wiilka su'aala lamaana markii la yaho kale in qofku markuu gurigiisa imaado waxaa laga yaabaa in yani waqti isiinta keliya uu u fahmo xilliga gogosha labada qof ay macaamilka uu dhex marayo laakiin waqtiyo kale waxaa jiro goosgoos oo u baahan يعني سؤال مرة قار قبل إن الله قيبسن كرتو حالها يشيء شقوين كفتوض قبنيسو وحكا عاوين كرتو على جو كرتو وشيكين كرتو مرة قار وحكا بحسن يشيء شغلة كوضة شيكيسن كرتان وقتي قار إن السين كرتان معلومة قار أم هبين قار إنها ليدين يعني waxa soo dhan si guud dareemada dadka way wada xoojisaa si gaarana dareemada dumarka runtii waxaan isleeyahay aad bay u xoojisaa dabcan markii banaanka la joogo ama xiriir la leeyahay saas oo kale wiilka waxa laga yaabaa wax ugu badan uu ku mashquulsan yahay shaqadiisa inay tahay marka adiista gabadha inaad message u soo dirto ama fariin u reebto waxa laga yaabaa inay wax weyn agteeda ka tahay inaad soo xisaax wanaagsan aad tiraahdo habeenka markaa soo hooyato aad yani nolol maalmeedkaagii xaaladaadii maanta jawgaagu siduu ku yahay iyo maaragtay sida wax kugu socdaan iska warqabkaas guud waxaan isleeyahay wax weyn oo dumarka u taraa runtii ama u sameeya si guud marka way fiican tahay walaga yaabaa in marka dadku badi isdhahaan haddii dee labada qof waxay yidhahdaan Soomaalidu balaayo kaa orod dheere haddii labada qof si guud kor iskaga warqabaan oo maaragtay marka wax jiro ama marka la kulmayo kaliya runtii la sooco waxaan isleeyahay iyadoo taa jirto haddana waxa aad u sii muhiim ah iska warqab guud inuu markaas jiro waa 24 saac haddii macquul tahay aan la ismu ogaanin haddii marka duruufo runtii kalifaya marka ama qasbaya aysan jirin marka halkaas waxaan leeyahay raggu si gaar ah u sii guntadaan oo maaragtay ha ku talagalaan runtii waxyaabaha jacaylka kordhiya ama aan isleeyahay muhiimadda nolosha uu leeyahay qiimihiisa waxaa ka mid ah runtii aan isleeyahay aad bay muhiim u tahay inay maaragtay dhalinyaradu fahmaan ama gartaan xorriyadda ka mid ah xornimada ama xorriyad siintu waxay qayb weyn ka qaadataa qiimaha jacaylka iyo qiimaha xidhiidhka iyo isla jirka labada qof xorriyadda kama wada qofka qalad walba oo ka aragto inaad faraha uga qaado xumaanta uu samaynayo inaad indhaha ka fiirsato waxyaabaha dareen ahaan ku dhibayo ama ku dilayo inaad ka aamusto ma aha laakiin dabagalka faraha badan inaad maanta oo dhan qofka ku mashquulsanaato social mediadiisa oo kale inaad ku mashquulsho taleefanadiisa inta badan ciladahaas si gaar ah dumarkaad moodaa inay ku badan yihiin oo dabcan rag qaar oo lehna way jiraan si guud marka xiriirka يعني uma wanaagsana ama badbaado uma aha in aad maaragtay la isku dabagalo oo xorriyadda la iska qaado oo qofku saacadaha ama daqiiqadaha wada joogtaan aad muran ku dhamaysataan oo aad su'aalo badan oo runtii aan faa'iido badan u lahayn xiriirkiina aad is weydiisaan laakiin si guud uu qofku yani qofkiisa uga warhaayo wixii qalad uu ka arko kala hadli karo uu dhihi karo dareen ahaan aniga waxaas way dhibayaan eegada iyadoon xornimada ama xorriyadda aan la iska qaadin oo aan la isdaba joogin وحاجة كده عادي يلا هذا الشيء يلا سعتي حاجة جوكتا ما تقدر أنا لسه هنا سواء كانوا حيابها رنتي درنك أما جعلك قيميزة سيكر دي وحا قيب كأه محل هذا وأنا سلاي هاي إن لقى بلعبان الله مريه هاي حديرك إلهي لله مركز سول وناجي مركز سول حديرك الله على الله إذا هاي أو ناجي سول مركز سول حديرك والدك يدك رنتي مسؤولك كأن رش على الله إذا هاي أو ناجي سول ومركز سول يكون أكسن هذا عن حديرك كلودن marka inahaasna in la iska xoojiyo oo ay aad uga fikiraan dadku ama fahmaan ayaan jeclaan lahaa maanta waxaan u maleynayaa un duni badan iyo dad badan u dagaaldegayay waxay ugu magac dareen maalinta jacaylka marka aad uma rabaan inaan u dhexgalo maadaama aad moodoon Soomaali ahaan diin ahaan iyo dhaqan ahaanba inaysan wax badan annaga naga qusiinin laakiin waxaan rabaa un insha Allah inaan isdul taago un ka hadlo jacaylka qiimihiisa iyo in runtii uu ka weyn yahay wax maalin lagu koobo iyo sida ay tahay nolosheena muhiimadda uu leeyahay meelaha ay tahay in laga eego ama maaragtay nolosha looga dabaqo iyo waxyaabaha aan u arko dabcan inay dilayaal u yihiin ama jacaylka ay dhibaato u yihiin intaan u guda gelin caqabadaha marka waxaan rabaa insha Allah inaan daqiiqadaha aan haysto dulmar ugu sameeyo haddii eebweyne ka raali noqdo muhiimaddiisa iyo maaragtay muxuu ahaa qiimaha jacaylka uu leeyahay ugu horreyn jacaylku waa dareen iyo ficil u baahan joogteyn inta badanna waxa ay tahay in qofku uu garto ama fahmo yani in dareenkan uusan la mid ahayn dareemada caadiga ah ee damaca eelitaanka
iyo waxyaabaha la xiriira baahiyaadka shahwadeed ee gaarka ah se uu yahay dareen runtii ka qoto dheer intaa kana qiimo badan oo ka miisaan leh sidoo kale jacaylku waxyaabaha dareemada kale uga duwan yahay waxa u baahan yahay dhooritaan dhaqaaleyn dhiirin iyo maaragtay dhamaystir ayuu u baahan yahay mar walba qofka kale dhammaanihiisa uu hibeeyo ama maaragtay uu ku ilaasho jacaylku waa hagid horumarin hagaajin iyo horseedid nolol aayo wacan dabcan inta xiriir wadaagga leeyahay dareenkan la isku hayo waxaa fiican in qofka kale uu yani ku dadaalo siduu maaragtay lamaanihiisa ama xiriir wadaaggiisa uu horumarin lahaa si loo gaaro hadafka laga damacsan yahay ah in nolol guur oo runtii jacayl iyo isfaham ku dhisan ayagleelo jacaylku waxyaabaha uu nolosha muhiimadda ugu leeyahay hadday tahay xiriir iyo haddii dee dabcan ilaahay dadka calafta intuu isugu daro nolosha ay qaybsadaan waxyaabaha uu muhiimku yahay ama ugu waaweyn waxaa ka mid ah in laga dhaxlo daryeelid in laga dhaxlo maxaa la dhahaa diirnixid iyo maaragtay in laysu damqado oo qofka kale maaragtay mar kasta isku dayo inuu u muujiyo danayn fara badan si uu qofkiisa u ilaasho sidoo kale jacaylku waa maalgelin iyo maamuusid maalgelin markaan leeyahay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u arkaan hanti inay u arkaan laakiin inaad qofkaaga si wanaagsan ula dhaqantaa maalgelin ah inaad hadal fiican ku tiraah ayaa maalgelin ah inaad ficilo qurux badan kula dhaqantaa maalgelin ah inaad difaacdo oo mar walbo yacni dareenka iyo dadnimada qofka kaala dhexayso aad u heelan tahay inaad dabarka u ridato ayaa maalgelin ah waxaa maamuusid ah inaad qofkaaga qiimeysato maaragtay mar walba aad ku dadaasho sida xiriirkiina uu noqon lahaa midka ugu macquulsan uguna wanaagsan sidoo kale wuxuu u baahan yahay marxabayn iska warhayn fara badan yacni in qofka kale uu qofkiisa maaragtay ka warhaayo waqtiga u huro maaragtay isku dayo inuu maxaa la yidhaahdaa ilaashado sidoo kale jacaylku wuxuu u baahan yahay mahadcelin marka aad qof wanaagsan noloshaada uu kusoo biiro waa inaad qofkaa uga mahad celisaa yacni fursadda qaaliga ah uu ku siiyey sida maaragtay noloshaada muhiimadda uu leeyahay booska qiimaha badan ee uu ku buuxiyey sida maaragtay uu kuula falgalaayo siduu ku ilaashanaayo sababtoo dad badan waxaa jiro kula mid oo runtii aan dareenkaa helin ama hibadaas aan helin marka inaad ilaahayna uga mahad celiso qofkaagana aad uga mahad celiso booska muhiimka uu kugu jiro aad bay maaragtay muhiim u tahay sidoo kale jacaylku wuxuu u baahan yahay meelmarin waxaa meelmarin ah ballanqaadyaa laysku sameeyaa waxaa meelmarin ah ii sheege wax badan waxaa jiro yacni qofka kale uu u rajaynayo ama maaragtay uu ugu talagalay yani waxyaabaha laysku ballanqaaday ama laysla rabo dhan in qadarka marka laga soo tago in dadku ay ku talagalaan laftirkooda ay u dadaalaan ilaahay wuxuu yidhi dadaal waa in la jiraa yani dadku inay dadaal fara badan muujiyaan oo maaragtay qofkiisa kale uu maaragtay la meelmariyo ama u meelmariyo waxyaabaha uu rabo noloshoodaas ama xiriirkoodaas inuu kusii jiro oo kusii adkaado sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah oo aan isleeyahay dadku marka xiriir jacayl ka dhexeeyo muhiimka tahay inay isla eegaan waa inay istoosiyaan qaladaadka iyo waxyaabaha dhexdooda yaallo ay isaga digaan ama maaragtay iska maxaa la yidhaahday wacyigeliyaan waxaa qayb ka ah inay istayeeyaan oo qofkiisa kale waxyaabaha uu isleeyahay waa ka dhiman yahay waxbuu ka bedeli karaa waxbuu ku dari karaa waxbuu maaragtay ka hagaajin karaa inuu maaragtay qofkiisa u sheego ama la wadaago in la istaabageliyo midba midka kale maaragtay uu ku talagalay inuu maxaa la yidhaahdaa dhiirageliyo qofkiisa in la istaakuleeyo la iscaawiyo oo maaragtay taakulaynta waxay noqon kartaa qofkaaga waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan inaad ka roon tahay maxaa la yidhaahdaa wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado muhiim ma aha inay ragga bis maaragtay ay wax maalgeliyaan saas lamida gabadhuba hadday ka jeenfiroon tahay qofka xiriirwadaaggeeda ama lamaankeeda ah way tari kartaa waxna waa ku tari kartaa marka yacni qofkiisa uu taakuleysto ka caawiyo hadday waxbarasho tahay hadday horumarin nololeed oo kale tahay wax weyn waaye waxyaabaha oo jacaylka sii xoojiya ama tamartii awoodda u sii yeela ayuu qayb ka yahay oo maaragtay dadku inay si guud wax iskula tacbadaan oy ku wada dhiiran yihiin inay noloshoodaas isu dhammaystiraan iyaga wax weyn waaye sidaan isleeyahay sidoo kale waxyaabaha jacaylka muhiimka u ah isfahamka qayb ka ah isfahamka ani waxaan aaminsanahay marka laga soo tago dareen guud oo jiro oo yacni ilaahay dadka u kala hibeeyo oo qofkuu fahmo iyo qofuusa fahmin ay dhici karto haddana mararka qaar dadka isfahamka ayaga abuurta habka ama hanaanka isfahamka loo abuuri karo waxaa ka mid ah
in yani qaladaadka la iska dhagaysto in waxyaabaha qaar la isaga tanaasulo in maxaa la yidhaahdaa ciladaha jiro la isu sheego in wax la isla soxo in qofka kale uu ogol yahay oo maaragtay oo yani isdiidsiin waxa la dhahaa ama isdareemi la'aan inaysan jirin marka isfahmyadaa la abuuran karo ama isfahamkaa la beeran karo waxaan isleeyahay labada qof hadday ku talagalaan inuu qofka kale fahmo ama uu wax ka bedelo ama uu wax u saxo ama wax u hagaajiyo wax badan baa qurux badnaanayo sidoo kale waxyaabaha jacaylka sii xoojiya ee qurxiyo waxaa ka mid ah isu tanaasulka iyo isu saamaxaadda runtii laba qof oo xiriir wadaag ah markasta qalada dhex maraya ama wax uun baa si ka noqonaya marka labada qof inay waxyaabaha qaladaadkaas isaga tanaasulaan mararka qaar oo aan wax kasta la isku qabsan tusaale qofku markuu taleefanka kaa qaban waayo ama intaad wax isku ogeedeen wixii si uun ay ka noqdaan in aan xiriirka lagu joojin ama aan lagu jaran ee maaragtay la isku dayo in waxyaabaha qaar la isaga tanaasulo ama la iska saamaxo oo la isaga dhimriyo aad la isugu dulqaato oo la isku dayo in maaragtay wax badan lagu qurxiyo waxyaabaha sii xoojiya waxaa ka mid ah hadiyad siinta ama maaragtay waqti isisiinta waqtigu wuxuu qayb ka yahay waxyaabaha aan isleeyahay ilaa xad way xoojisaa xiriirka lamaanaha ha ahaado lamaano banaanka kala joogay rabo inay nolol dhistaan iyo kuwa nolosha qaybsado ee dabcan wada joogo si gaara dumarka wax moodaa in mid ka mid ah dareemada ugu qaalisanay u baahan yihiin in loo hibeeyo ama ay helaan oo ay hantaan waxaa ka mid ah waqti la siiyo waa laga yaabaa wiilka inuu is yiraahdo maanta oo dhan baa shaqo ku maqan tahay howlo badan ha ku yaalo adduunkaasaad maaragtay la tartamaysaa waxyaabo cusub inaad soo kordhisaa u baahan tahay so marka haddii gabadha dhaqaalo la siinaayo maxaa la yidhaahdaa mararka qaar loo imaanayo maxay uga baahan tahay in waqti badan la geliyo su-aasha noocaasa laga yaabaa ragga badan inay isweydiiyaan laakiin runtii waxaan isleeyahay waxyaabaha runtii dumarka muhiimka u ah ama baahiyaadka u waaweynay dee dabcan dumarku ka cawdaan waqti la'aanta ka mid ah marka waqtigu ma aha inuu qofku waqtigiis ugu badan geliyo ma aha qofka laakiin yani mararka qaar waxaa dhacda wiilka tusaale lamaana markii la yaho kale in qofku markuu gurigiisa imaado waxaa laga yaabaa in yani waqti isiinta keliya uu u fahmo xilliga gobasha labada qof ay macaamilka uu dhex marayo laakiin waqtiyo kale waxaa jiro goosgoosa oo u baahan yani su'aal mararka qaar gabadha inaad la qaybsan karto xaaladaha iyo shaqooyinka fudfudud ay qabanayso wax ka caawin karto aad la joogi karto u sheekayn karto mararka qaar wax ka baxsan ii sheeg shaqada ka wada sheekaysan kartaan waqtiyo gaara inaad siin kartaan maalmo gaara ama habeeno gaara inaad leedihiin yani waxaasoo dhan si guud dareemada dadka way wada xoojisaa si gaarana dareemada dumarka runtii waxaan isleeyahay aad bay u xoojisaa dabcan markii banaanka la joogo ama xiriir la leeyahayna saasoo kale wiilka waxaa laga yaabaa wax ugu badan uu ku mashquulsan yahay shaqadiisa inay tahay marka adiista gabadha inaad message usoo dirto ama fariin u reebto waxaa laga yaabaa inay wax weyn agteeda ka tahay inaad subax wanaagsan aad tiraahdo habeenka markaad soo hoyato aad yani nolol maalmeedkaagii xaaladaadii maanta jawigaagu siduu ku yahay iyo maaragtay sida wax kuugu socdaan iska warqabkaas guud waxaan isleeyahay wax weyn oo dumarka u taraa runtii ama u sameeya si guud marka way fiican tahay waa laga yaabaa in marka dadku badi isdhahaan haddii dee labada qof waxay yidhahdaan soomaalidu balaayo kaa orod dheere haddii labada qof si guud kor iskaga warqabaan oo maaragtay marka waxa jiro ama marka la kulmayo keliya runtii lees waco waxaan isleeyahay iyadoo taa jirto haddana waxa aad u sii muhiima iska warqab guud inuu markasta jiro waa 24 saac hadday macquul tahay aan la ismogaanin haddii markaa duruufo runtii kalifaya marka ama qasbaya aysan jirin marka halkaas waxaan leeyahay raggu si gaar ah ha usii guntadaan oo maaragtay ha ku talagalaan runtii waxyaabaha jacaylka kordhiya ama aan isleeyahay muhiimadda nolosha uu leeyahay qiimihiisa waxaa ka mid ah runtii aan isleeyahay aad bay muhiim u tahay inay maaragtay dhalinyaradu fahmaan ama gartaan xorriyadda ka mid ah xornimada ama xorriyad isiintu waxay qayb weyn ka qaadataa qiimaha jacaylka iyo qiimaha xidhiidhka iyo isla jirka labada qof xorriyadda kama wada qofka qalad walba oo ka aragto inaad faraha uga qaado xumaanta uu samaynayo inaad indhaha ka fiirsato waxyaabaha dareen ahaan ku dhibayo ama ku dilayo inaad ka aamusto ma aha laakiin dabagalka faraha badan inaad maanta oo dhan qofka ku mashquulsanaato social mediadiisa oo kale inaad ku mashquulsho taleefanadiisa inta badan ciladahaas si gaara dumarkaad moodaa inay ku badan yihiin oo dabcan rag qaaroo lehna way jiraan si guud marka xiriirka يعني uma wanaagsana ama badbaado uma aha in aad maaragtay la isku dabagalo oo xorriyadda la iska qaado oo qofku saacadaha ama daqiiqadaha wada joogtaan aad muran ku dhamaysataan
waad su'aalo badan oo runtii aan faa'iido badan u lahayn xiriirkiina aad isweydiisaan laakiin si guud uu qofku yani qofkiisa uga warhaayo wixii qalad uu ka arko kala hadli karo uu dhihi karo dareen ahaan aniga waxaas way dhibayaan eegada iyadoon xornimada ama xorriyadda aan la iska qaadin oo aan la isdaba joogin oo xagee ka dhacday yaa la hadashay yaa la socotay iyo xagee joogtaa maanta oo dhan aan la isku hayn sidoo kale waxyaabaha runtii dareenka ama jacaylka qiimihiisa sii kordhiya waxaa qayb ka ah maxaa la yidhahdaa aan isleeyahay in laga bilaabo ama loo horumariyo ahayd xiriirka ilaahay lala leeyahay markastoo la wanaajiyo markastoo xiriirka allah ala leedahay aa wanaajiso markastoo xiriirka waalidka iyo dadka runtii mas-uulka ka ah noloshaada ala leedahay aa wanaajiso oo markastoo ay ku wanaagsanaadaan xiriirada kale oo dhan marka inahaasna in layska xoojiyo oo ay aad uga fikiraan dadku ama fahmaan ayaan jeclaan lahaa waxaa jira waxyaabo la yidhaahdo dilaayaasha jacaylka ama maaragtay waxyaaba u keeno jacaylka inuu dhinto ama maxaa la yidhaahdaay hankiisi iyo hamiguu lahaa u babao waxaa ugu weyn oo ugu muhiimsan waxa weeye beenta aniga ma garanayo sabab qofkiisa uu been ugu sheego ma ogi wax badbaado ah oo laga fursan waayo sida diinta ay banaysay laakiin yani inta badan waxaan isleeyahay dee beenaha laysu sheego waa beeno aan muhiim weyn u sameynayn xiriirka jiritaankiisa marka qofku intuu qofkiisa been ku qancin lahaa waxaa fiican xaqiiqada jirto inuu u sheego waa laga yaabaa inaad istiraado qofkaagan haddaa runta u sheegto ama kugu nacaa dhabtii qofka intaad banaanka kala joogtaan ama aad ugubka isku tihiin isku cusub tihiin haddii uu kugu naco runaa u sheegtay wax macnaa ma kuu samaynayso beri oo waqti badan intaad iska lumiseen wax badan aa wadaagtaan runtaa u sheegto oo ku bixi lahaa waxaa ila qurux badan aniga intaad isku cusubtiin wax walba xaqiiqada noloshaada inkastoo soomaalidu ay tiraahdo waxbaa la kala reebtaa oo qofku sirtiisu inuu wada bandhigo sax maaha haddana in dee inaa ugu muhiimsana qofka waxa idinka dhexeeya aad isu sheegtaan way wanaagsan tahay waxyaabaha runtii dilaayaasha jacaylka kamida waxaa kamida maxaa la yidhahdaa xurmo la-aanta haddaan la isxurmaynin oo qofkan qofkiisa uu ilaalin mararka qaar waxaa dhacdo dhalinyarada tusaale marka xiriir wadaagga leeyahay oo kale waxaa laga yaabaa qofkan ayadoo asxaab lagu dhex jiro in hadalla aan qaab lahayn ama qaab daran qofkiisa uu kula hadlo ama dee yani uu xurmo darro badan oo qofka uu muujiyo markuu la hadlaayo ama uu la jaho kale saas oo kale yani xataa waxaa xurmo darro ah maaragtay in aad loo murmo oo la doodo maanta oran buuq iyo iska qabsi iyo xiriirka yeesho qayb xurmo darrada ka mid ah waaye lugooyada ka mid ah inaa intaa qofka la balanto maxaa la yidhahdaa tirada waan kuu imaanayaa ama waa is arkeenaa ama waqti tusaale waqti guur oo kale aa ku balanteen ama dee si uun qofka aa u balanteen aad la goyso waxyaabaha jacaylka dilo ama uu ku dhinto ka mid tahay so marka haddaad qofka mar iyo laba iyo saddex aad la goyso runtii waxay keenaysaa in dareenka uu ku hayay uu dhinto ama uu lumo sidoo kale waxaa qayb ka ah waxyaabaha dareenka dila waqtiga dheer marka xiriirka ay joogto haddii dee lamaanuhu ama dad xiriir wadaaggu ay waqti fara badan xiriirka u socdo runtii waxaa moodaa uun maalin ka dambayso xiisihii iyo hankii iyo hamigii iyo rajadii la iska lahaa inay sii dhimanayaan ama ay sii yaraanayaan marka waxa fiican wixii duruufo keeneen oo runtii laga fursan waayo oo xal loo waayo waa yeelkadood ama waa gaarkood laakiin wixii maaragtay la xalin karo waxa fiican dareenka intuu ugub yahay in dawadiisa la helo sidoo kale waxyaabaha dilo xiriirka waxaa ka mid ah kala fogaanshaha labada qof hadday laba meel oo kale ku kala nool yihiin ama aad u kala fog yihiin diraalo badan aa jiri karo laftirkooda waxaa laga yaabaa si u kala fog yihiin inaysan u wada xiriirin oo waqti fiican wada qaadanin ama wax badan aysan isweydin siro badan u kala qarsoon yihiin noloshoodu qofka kale uusan ka warhaynin yani hadhow waxay keenaysaa un in maaragtay waxaan hadday sii jiraan oo aad waqtigu usii dheeraado in xiriirka ama dadku aad usii kala fogaadaan oo aan laysu imaanin yani uusan kulan jirin ama is arag uusan jirin yani waxyaabaha dareenka dilo ama jacaylka sii nusqaamiyo qayb ka tahay cagsigeeda mararka qaar kulanka faraha badan laftirkeeda jacaylku u dilaa haddii mar kasta la kulmo dadku habeen walba is hor fadhiyaan maanta oo dhan la wada hadlayo subaxii duhurkii galabkii habeenkii casirkii dadka qaar shaqooyinka aad moodaaba inay isla qabtaan oo aad taleefonka ugu wada hadlaan waxaa laga yaabaa qofka maalmaha hore xiisaha iyo carcarta ku jirto inuusan isdareensiinin laakiin way dhacdaa in mar kasta oo yani aad qofka aad isugu sii badbadataan xiisihii iyo nugeylkii iyo yani sirihii badnaa oo maaragtay banaanka usii wada baxaayo ay lumiso ama ay lumaan
sidoo kale waxaa qayb ka ah isbebedelka inta badan way dhacdaa qofka shalay wejigaa ku ogeyd maa weji kale inuu la soo baxo waxyaabaha ugu badan ee hadda runtii intaan ama daraasadaha sameeyo ama dadka ila soo xiriiriya dee cabashooyinkooda ila wadaagaan waxaa ka mid ah qofku inuu isbedelo inta badan taas raggaa moodaa inay u badan yihiin marka hore maalgelinta koowaad ayagaa yeesho gabadha waxaa laga yaabaa ama iyada ha soo dalbato ama asaga ha dalbado maalmaha ugu horeeya ama bilaha ugu horeeya in carcartiisu badan tahay inuu aad u wacwacaayo inuu isku dayaayo siduu usoo dabi lahaa aad ugu sheekeeyo waqti fara badan uu geliyo markuu arko gabadhan inay usoo dhawaatay oo dareenkeeda iyo wax walba oo yacni kasii jeeday ay usoo jeesteen waxaa laga yaabaa inuu maaragtay wixii hakad uu geliyo ama uu yareeyo oo sida deshada ugu dhaqmayo u dhaqmin taasna waxay ku keenaysaa runtii dhibaato waxaa la yidhahda dumarka wax la barayo bar lagala haraa ugu daran wayna adag tahay inay hadhow beri kaa aqbasho gabadhan shalay sidaa ula dhaqmaysay si ka duwan haddaad lasoo baxdo waa kaa mashquulay iyo intay noqotay iyo waxbaa igu soo kordhay saa qolka dareenkiisa uga dhaadhicisa waa adag tahay dabcan ragga qaarna waa lagu sameeyaa oo ma dafiraayo laakiin waxaad moodaa in dumarku ku badan tahay ciladaas inay la kulmaan ragguna ay ku badan yihiin inay sameeyaan sidoo kale waxaa qayb ka ah maaweelada mararka qaar dareenka ii sheeg waxaa laga yaabaa hal qof keliya inuu dhankiisa dhab ka yahay hal dhinac inuu jiro qofka uu oorka keligii u raran yahay qofkan kalena ay ka tahay maaweelin iyo maaragtay bal meesha in la gaarto arag ama meesha dee dabcan waxay yidhaahdaan meesha kugu gaaro ku gaaro wax noocaasaan maqli jiray marka yacni dareenku markuu hal dhinac yahay ama hal garab yahay way keentaa in yacni ugu dambeyn dee qofkan kale bini aadan waaye maalin kastoo haddaad dhaawacdo dhibaato u geysato xanoojiso ku waayo kugu walaaco aad kugu rafaado ugu dambeyn beri go-aan uu gaaraya dareenkina halkaas ku dhimanaya sidoo kale waxaa qayb ka ah dhaqan xumada haddii dee xadgudub uu jiro mararka qaar waxyaabahan ilaahay raalli ka in lagu dhaqmo dadka laftirkooda dhaqan xumo guud ay ku jirto sababa qofka hadduu xiriirku ilaahay la leeyahay isan wanaagsanayn usan salaada tukanaynin ii sheeg waalidkiisa uu si fiican ula dhaqmaynin aqoontiisa iyo cilmigii wuxuu bartay isan waxba ka bedelaynin bulshada markuu ku dhex jiro dhaqamo xumo oo runtii aan qurux badanayn uu sameynayo gabadhani sidoo kale taasoo kale ay sameynayso qofkan kale ay wax la wadaagayan qof wanaagsan oo runtii nolol qurux badan iyo wax qurux badan qofkiisa la rabo uu yahay dhaqan xumada qofkan kale leeyahay way saameynaya qofkan ugu dambeynna waxay sababaysaa in xiriirka burburo ama jacaylka uu dhinto xaasidnimada ka mid a xaasidnimada waxaa la yidhahdaa dad lafay ugu jirtaa oo ustaad farxiyo toban daqiiqo hadda inoo wadi topica waxaan jeclahay inaan goosgoosanno qaarkood waxaa laga yaabaa in su-aalo badan lagaa weydiiyo marka soo gunaanad waa kugu soo laaban doonaa marar kale waa mahadsan tahay saddex qodob unbaa ii hartay waxaan kusoo koobayaa uun ii sheege mararka qaar xurgufta iyo dagaalka faraha badan iyo muranka way baabi'isaa waxyaabaha dilaayaasha jacaylka ka mid ah dooq wareerka iyo qofka inuu ku fakiro dhowr qof oo kala duwan inuu samaysto asoo og inuu qof jecel yahay qalbiga ku hayo haddana waxaa jira damac ka sokeeya oo dadku iska jecel yihiin inay wax badsadaan marka raggi iyo dumarkaba labadaba way leeyihiin taasna way keeni kartaa baan isleeyahay waxyaabaha jacaylka dilo oo wax badsado wax beel bay leeyihiin bay Soomaali tiraa inahaasaan ku koobaya waa mahadsantihiin soo dhawaada waa mahadsan tahay ustaada farxiya laba filaan oo caawa inoo marti ah caawa barnaamijkeenu sida barnaamijyadeeni siyaasadda dee su-aalihiisu ma noqon doonaan kuwa isku xujaysi ama follow up saasa leh laakiinse waxay noqonayaan kuwa aan wax ku kala faa'iidno ku falanqayno qisooyinka iyo sheekooyinka jacaylkana in la wada wadaagaan rajaynaya dad badanaa soo codsanaya barnaamijka laakiinse waxaa moodaa dadka markii aan uu qofka soo dalbado kadib codsiga isna waa loo dirayaa in aanu dib ka soo qabsanayn marka in dadku ay soo wada fahmaan baan rajaynayaa mar kale dhammaantiin weydi soo dhaweynaya yuusuf barnaamijka ila waday wuu soo laaban doonaa waxaan jeclahay in aan barnaamijka isna aan qayb kaga soo daro oo kelmad siiyo inta aanan su-aalaha iyo akhyaarta kale u gudbin gorod jare oo ustaad arrimaha bulshada isna wax ka qora abwaana wuxuu kaga jiraa facebookisa dad badan barnaamijkan ma ogola inuu soo geliyo marka facebook wuxuu kaga jiraa yaasir isna saaxiibkay ah yaasir haddii aanu su-aal qabin gorod baan jeclahay in uu soo galo oo aan weydiiyo bal sugaanta iyo heerka uu soomaalida jacaylku ka joogay dhaqanka markay timaado gorod
السلام عليكم والسلام يا ضدك فرها بدن إن dhageysanaya adiga laftaada maxamed saalaxa injineer xudeyfe iyo farxiye iyo gabdhaha kale ku jira dhammaan horta maalin wanaagsan habeen wanaagsan qolaba waxay u tahay baan leeyahay yow mawduucan aniga waa laga faradhuudhuuban yahay hadda ka hor baan inta buuhood la tegay baa layidhi baan arkay laba gabdhood oo ka sheekaynaya oo leh ragga lacagta dee kuwa maanta nin baaba u soo baxay hadda gabdhihii hadda aad u sabidanaya laakiin anugu habeenkaa waxaan hadal iga yeeray oo aanan aad waxa weeye markii hore midhaadee aan ku kaftamayey baa waxa weeye halkaa ka baxay marka haddaan u soo noqdo tan mawduucan aniga horta aad baa layga badiyaa laakiin suugaanta waxaan ka ogahay soomaalida ama dhaqankii hore Soomaaliyeed adigu Soomaalidu wax badan dee nolosheen oo dhan wax badan lagama qorin laakiin adigu labadii qarni oo u dambeysay waxaad moodaa dadkii ugu horreeyay suugaanta ka gabiyey ama ka maansooday waxay ahaayeen ninkii la oran jiray raaga ugaas oo kale marka bulshadii hore Soomaaliyeed jacaylka markii qofka Soomaaliyeed markuu jacayl ummad waxay ahayd adag oo waxa loo arkay jacaylku inuu yahay yani warka uu ku cusbaa adigu baahi baa jirtay guur oo siyaalo badan baa la isu guursan jiray oo qaybihii guurka la wada garanayo laakiin markii qofku ay noqoto dhinaca jacaylka ay jacaylku yimaado waxa soo baxay bulshadu waxay arkaysay markii xogaa nuglaansho waliba dhinaca ragga gabdhuhuna kuma dhici jirin marka waa xogaa waa wax lala yaabay bay ahayd in qofku yiraahdo qof baan jeclahay oo dan baa la isu guursan jiray wax dan ka badan ma jirin marka way soo socotay oo dadku Soomaaliba meel buu taagnaa xilliga qarniga adu hadda dhamaaday ee 20aad buu misana soo bilowdo xogaa soo baxay ninkii la oran jiray weerar bulxan ninkii la isna halka iyo berbera joogi jiro cilmi boodari la oran jiray isna uu ka gabiyey waxaasoo dhan Soomaalida waxay u ahayd weli ma ahayn wax la yaab leh ahayd oo jacaylku ma ahayn mawduuc bulshada ku dhex baahsan kadib adu markii fanka Soomaaliyeed aad u soo bilowday wixii leeyahay afartanaadkii kadib oo waliba suugaantii heelada kadib muusigii iyo Soomaalidu wax baratay marka kadib ayuu wixii noqday mawduuc bulsheed oo caadi oo laga faaloodo laga gabiyo wax laga yiraahdo kadibna Soomaalidu dee waa taas soo ilbaxdo maanta halkaan aynu taaganahay marka soo yaalahan saas oo ahaa jacaylku oo Soomaalidu ilaa maanta waa tan aan weli sida hadda farxiya sheegtay wax badan la fahmay baa jira laakiin weli Soomaalidu wixii la oran jiray jacaylku weli Soomaalida dhexdeeda wuxuu ku yahay xoogaa rajay buu ku yahay waxaan sidaa u leeyahay wuxuu u baahan yahay Soomaalidu siday u aragto wax ka ballaaran oo ummadaha aqoonta leh inagu isku jacaylka isku si uma aragno oo waxaad moodaa Soomaalidu weli si laga rabay ama jacaylku muuqaalka dhabta uu ka leeyahay bulshooyinkana ka ilbaxsan ama ma leh marka way go'go'san doonaa hadalka taadi weydiisay sidaasan ka leeyahay dadkan kale bal waxay ku daraan sugno insha Allah way amaantii hagaag waa gorod waa mahadsan tahay waxaan u diray abwaan maare oo arrimaha jacaylka dadka aadka wax uga qora ay hob inuu soo qabsanayo waayo gorod waa mahadsan tahay saaxiib waa kugu soo laaban doonaa akhyaarta kale aan u gudbi doonaa oo barnaamijka qayb igala ah yuusufna waa soo laabtay yuusufow adigu iska bilow oo bal horta jacaylka maxaa ka aaminsan tahay daadar akhyaarta kale si maxamed waa mahadsan tahay dhammaan waxaan u mahad celinaynaa tiimka abaabulka ka shaqeeya barnaamijkan
oo aad ugu horreysid iyo sidoo kale walaashii farxiyo nala joogta iyadana aadaan ugu mahadcelinayaa waxaan jeclaan lahaa fikirkayga la xiriira arrintaas inaan gabagabada ku sheego maadaama aan wariyaha wax xiriirinahay aniga adigu qaybaha dambe aan isku wareysan doonaa iyo aragtidada fariida iyo waxyaaba badan baan ku hayaa laftirkaaga marka dadkan siinayaa waaye dadka hore ugu soco marka waxaan siinayaa gabar baan u jeedaa leylo haddaanan khaldanin ama sida uu aniga iigu muujinayo sida dadka u kala horeeyaan inay soo kala horeeyeen baa laga yaabaa maadaama aan ka baxay marka leylaan kusoo dhaweynaya haga raan lahaadeen dad ka horreeya hadday ay jiraan oo aan ka xoogay leyla maxamed ma joogtaa leyla inaysan joogina u malaynaya waxaan u jeedaa iyadana akhyaar ma joogtaa walaal ها ولا لا ولا مقلع soo dhow horta waa dhowahay waana salaamayaa horta Soomaalidu waxyaabo badan bay dhaqan u leedahay dhaqan soo jireen ama jiray oo dadka haddeer jooga iyo dadkii hore farqi weyn baa u dhexeeya waxaa jirtay beri hadda ka hor sheekooyin baa adigu Soomaalida hore inan wiil hablihii hore jacaylka may sheegan jirin way ka xishoon jireen inay waxayeen ninka inay jeceshahay u sheegato sida dadka hadda ilbaha casriga amay ahayn waxa dhacday marka inan la siiyey nin baa iyadoo aanu la aqal gelin wayna jeclayd buu wuxuu yiri waa col reerihii u soo dhowaa baa col u soo duulay dabeedna inankii inanta la siiyey colkii buu raacay hadduu colkii raacay waa maqribkii adigu maalintii dambey soo noqdeen nimankii iyo reerihii iyo waxaa loo sheegay gabadhii inay ninkeedii dhintay kadibna inantii waa oyday marka mahmaah cajiiba baa jirtay oo halkaa ka samaysantay inantii hadday oyday aabaheedaa arkayay oo la joogo mise aaba waa maxay oohintu markaas waxay tiri aabe orgigii reer hebel baa dhintay markaasuu ku yiri aabe baroorta orgiga ka weyn marka waxaan uga jeedaa Soomaalida haddeer horta jacaylku waa wax jira weyn wax la dafiro maahan laakiin sida aynu hadda Soomaali ahaan ay dhalinyarada waqtiga haddeera joogto u adeegsadaan sida nuxurkiisii looga qaaday sida qaabkiisii looga bedelay iyo sidii hore uu ahaa gabadhu inay ceeb tahay wax aad loola yaabo gabadh inay tiraahdo labada farqiba waxaad moodaa opposite inay isku yihiin mar walba ay Soomaalidu dhinac xooga saarto marka anigu badin maayo Soomaalida haddeera jacayl laguma sheegi karo way jiraan dad horta muqdaro macquula laakiin kan hadda publica noqday ka helidda iyo waxa jacaylka la dhahay iskaga khaldameen aan aaminsanahay marka intaas soo koobaya waa maysan tahay akhyaar waxaan ku xijinayaa oo ku xigta Faati soo dhawow haddii aad qabto aragti iyo su'aal maalintan iyo waxay kaaga dhigan tahay السلام عليكم دمانتي وعيد السلامية ومهدسنتها يوسف يا محمد هذا ومهدسنتين فرحية لما فلان أيضا هذا وسلامايا حلقة اللي يحوي أرما جعلك ولو جعلك أد لا يجا قدرية جعلك سيدا ضبا تو وقفك بني آدم كاكو أبو رما مرتقف بقو jacaylkan aanu de waxaan ba aaminsanahay inuu sideedaba uu imaado labada qof markay isguursadaan jacaylka dhabtaa uu imaado laakiin waxa marka hore dhan la isku sheego inay wax khayaaliya tahay baan anigu arkaa oo mataqaanaa de qof wuxuu ku dhahayaa laanta ma noolaan karo ma neefsan karo ma hadli karo so waxaasoo dhan waxaa u arkaa
wax mataqaanaa aan wax kama jiraana laakiin dee jacaylka saxda oo runtaa waxa weeyaan waa jacaylka mustaqbalka iyo danta iyo labada qof mataqaanaa ku dhisman oo dee mataqaanaa dantooda ay labada qof ka wada hadlayaan wixii dantaa laakiin maanta dhan baa telefoon lagu hadlayaa maanta dhan baa waqtiga wax bilaa macnaa la isku sheegayaa kaasoo kale jacayl maahan laakiin jacaylka dhabta baahi waxa weeyaan dee inuu dadku labada qof markay wada hadlayaan ay ka wada hadlaan xiriirkooda saxda iyo waxooda mustaqbalkooda iyo mataqaanaa waxa ay doonayaan inay ka wada hadlaan midda kale jacaylku dee waagii hore mise hadda dee wixiiba wuxuu iska noqday wax beeno mala awaalo dadkii mataqaanaa ay qofba uu qofka kale uu been ugu sheegayo buu iska noqday su'aal haddii su'aalo la weydiinayo 3 su'aalood baan rabay inaan abaay farxiyo weydiiyo su'aasheeda koowaad waxay tahay ma marka ka helitaanku yimaado ayuu jacaylku yimaadaa mise marka jacaylku yimaado ayuu ka helitaanku yimaadaa su'aasheeda labaadna waxay tahay farxiyo abaay haddaa maqlaysid ma jeclaan lahayd in jacaylka daawo loo helo adiguse maxaa ku daaweyn lahayd haddii lagu keeno qof jacayl hayo su'aasha kaloo saddexaad aan weydiinaya waxay tahay maxay dhalinyarada isjeceli u dhahan la'aanta ma noolaan karo waayba eraygaasna u adeegsadaan waa mahadsantiin aad u mahadsan tahay waa ku mahadcelinayaa faati jaamac dalmar haddii farxiyo aan ku celiyo waxaan jeclaan lahaa inay su'aalaha hadda la weydiiyey si aan waqtiga u gogoosano ay noo dhexgeliso iyo haddii ay wax ku darayso oo dheeri ah waa mahadsan tahay walaasha fatina salaamaya allah shaqo intaa kadib kahilitaanka iyo jacaylka mar walba kahilitaanka horeeyo kahilitaankuna wuxuu saldhigu yahay kasoo askuma damac qofku marka hore uu jeclaysto inuu qofkan si uu naftiisa maaragtay una dooni lahaa marka damacaasoo baahay baa kahelitaan noqda kahilitaankaas oo runtii aad u sii fogaadana wuxuu dhalaa jacayl sidaan aaminsanahay jacaylku sidiisa dawo markii la yidhaahdo qofka dee waxa dawo noqon karo qofka uu rabo oo keliya wax ka sokeeyo waan isleeyahay qofka daawo u noqon karaa ama daawada rasmiga ah ee loo heli karo waayo ma jirto laakiin waxaa iska jira kaalmaati la yidhaha kaalmaatiguna wuxuu noqonayaa in qofku markuu qofkiisi waayo يعني waxyaabaha lagula tacaalo la yiraahdo in la yiraahdo maaragtay ka fogo waxyaabay qofka xasuusiisa micnihii ku keenaya ama meelaha ka arkaysay waxyaabaha qofka ku sii dhaweynaya waxaas ka fogo in la yiraahdo iyo sidoo kale in markasta qofka muslimka amarku mushkilad la kulmo galo caqabad uu dareemo cid ugu horeysa u laabanayo waa ilaahay markiina ilaahay ka baryo in qofka ilaahay qulubtiisa maaragtay uga xafido ka gudbo erayga la'aanta ma noolaan karo waxaan isleeyahay erayada qaar dee sidooda looma fasiri karo laakiin sida kale markii loo dhigo qofka kale waxa uu u marayo ama u mudanayaaba waxay keenaysaa qofku inuu qofka la'aantii culays badan uu marayo marka taas waayaan isleeyahay aniga macnaha rasmiga ku jirto la'aanta ma noolaan karo oo dee qofku hadduu qofka farxadiisii qof kale ay ku xiran tahay maxaa la yidhahdaa damaashaadkiisii firfircoonidiisii horumarkiisii waxyaabaha noloshiisii qurxinayay xasiloonida dareenkiisii waxaad moodaa inay qofku xiran tahay marka qofkaas baa wuxuu sababayaa qofkan kale wax badan oo yacni dejin lahaa ama xasilooni u ahaan lahaa taasaa keenaysa marka qofku inuu qofka kale la'aantii dhib badan u muto waa sababtaasaan isleeyahay aniga sababta loo isticmaalaya ereyga la'aanta ma noolaan karo si guudna dee qofka uu rabo baa noloshiisa yacni macno leh ama u macaaneynayso waana sababta dee qofka intaasoo bulshada oo kala duwan uu qofkaan uga xulanayo marka qofkan heerka uu u taagan yahay baan isleeyahay fasiraadda ereygaasi guntiisa way ku biyo shubanaysaa oo mahadsan tahay السلام عليكم. عليكم السلام waxaan u malaynayaa inay si fiican su'aalahay uga jawaabtay faati farxiyo waxaan ku soo dhaweynayaa xudayfe oo mikrofoonka sii dafay soo dhow يوسف waa mahadsan tahay khiyaarta meesha ku jirtan waa salaamaya maxamed saalax ugu horeeyo waxaan u boobay wax kale maaha doodan aad u dhageysanayay marka mobilka wuxuu iga dami rabaa marka waxaan sir balaadoon commentigaaga dhiiban yuusan damin
aad idin salaamaya runtii barnaamij aad u qiimo badan buu ahaa runtii intii aan dhegaysanayay waxaan aad maaragtay uga helay khudbaddii ay soo jeedisay ama kelmaddii farxiyo oo runtii barnaamijkan aad maaragtay aad mooddo inay aad wax uga akhrisay oo daraasiisay waxaan ka codsan lahaa horta in intii ay caawa noo sheegtay oo qoraal ah ama maaragtay hadday ka samayso buug inay maaragtay bulshadu ay noqoto waxay akhriso oo ay maaragtay wax ka faa'iido runtii waxaa oran karaa siday u soo koobtay dhinac walba nolosha ah buu ku kooban yahay hal wax bas baan ku darsan lahaa commentiya iyada aad iyo aad ugu mahad celinaya barnaamijka sida u daraasiisay iyadoo ka fiirisay min manduur alislaami dhanka islaamka iyo si isugu xidhay waqtiga hadda jira iyo qofku sida isugu balance garayn karo noloshiisa kale iyo noloshiisa caatifiga waxaasoo dhan marka boqolkiiba boqol iyadaan ku taageersanahay kuma laabanayo mid kale aan jirto oo aan ku darsanayo commentigayga ah jacaylku waa irsaaqad wey sida irsaaqada loo baxsho nooha kale ba isagana alla u baxshaa marka qofka inuu ilaahay weydiisto waxsan uu yiraahdo waxsan baa ilaahay weydiisto wanaagsan qofku waxa laga yaabaa inuu ku dacaysto guriyo iyo hanti iyo caruur wanaagsan iyo inuusan ay adag tahay inuu badanaa yiraahdo waxaan ilaahay ka abriyaa jacayl wanaagsan oo nolol qurux badan ducadaas marka waa irsaaqad ilaahay baxsho marka qofka haddii ilaahay jacaylkiisa kuga irsaaqana dee ilaahay unbaa kaa saari kara jacaylkiisa waxa adigu iska saari karto ama aad awood u leedahay maaha marka dhalinyaradu ama dadka xiriirada ku jira ama dadka guur damacsan inay waxa wanaagsan mar walba fishaan oo bahalka ay u arkaan arsaaqada ilaahay baxsho oo taas waa mid tan kaloo ah hadalkii Faaduma aan daba socdaaye horta jacaylku waa jira bulshadana waa u kala nugul yihiin rag iyo dumar dadku say hadba qofku shakhsiyadiisa tahay dad waxa iska jira beer jilicsan dad waxa jira dadka keer gareeya oo qofkii laba habeenba la hadlo u maleynaya inuu jecel yahay ama hadhow ku niyad jabaya shakhsiyadda kala duwan marka qofku shakhsiyadiisa hadday tahay shakhsiyad u samaysan inuu wax jeclaado u samaysan inuu qofka hore ka aamino marar badan waxa ku dhacday inuu wax jeclaado qofku niyadda ka jabo jacaylku waa jira waana taariikhiyan wax jiro de ilaa bini'aadamku intuu jirayba waa wax soo jiray oo la og yahay oo rag ka gabiyeeyo intaas taariikhdu ay xustay marka jacaylku inuu jiraan iyadana taa ku aaminsanahay marka Faaduma waxa leeyahay silaali waxa samaysaa marmar buu qofku ku xumaadaa qofka hadduu waayo waliba ninka ragga ah dumarku iyagu baa naga duwayn iyagu hadday helaanna waa alxamdulilah jacaylkooda hadday helaan waa alxamdulilah oo waa uga sii bataa oo waxay gaaraan heer jacaylka aysan raggu gaarin hadday waayaanna waxa laga yaabaa inay ilowshiyahoodu uu ka dhow yahay ragga oo muddo yar bay gabadhu isaga ilaawaysaa ama jacayl kale ama nolosha dib bay ula qabsan kartaa way ka nugushahay ninka ragga ah laakiin ninku hadduu gaaro marxaladii jacaylkii boodhari Allah u naxariista ragga hore iyo Layla iyo uu gabadhi waayo inuu u waasha dhici karta in wax u gaaraan inuu dib u geysto inuu si guursan uu doob ku dhamaysto baa dhici karta dadka ka khaldamaan marka iyadu waxaan weydiin lahaa farxiyo su'aasheeda aan u dambeysay waa sida aan ognahay ma akhrinay jacaylka waxa ku daran markii ay waayaan ragga marka ay helaanna dumarka ku daran marka sidee ninka looga ilaalin karaa gabadha intuusan helin inuu aad u jeclaado oo maartay heer caashiq uu gaaro marxalad sare gabadhuna aysan ninka u jeclaan ka hor guurka heerka inta la eeg marka qofku seesaga ilaalin karaa inuu jacayl inta la eeg oo xadka inta la qofka u qaado maxaa qofka xadidi kara jacaylku u qaadi karo wali si xal ma loo helay aad idin salaamay khiyaar waa maasanta walaalkay farxiyaan siinaya su-aashaas si aan waqtigan isugu gongeyno su-aalahan haddii ay nagu bataan waqtigu inuu sii adkaanayaan filaya marka farxiyaan siinaya si noogu soo koobto walaalkay Cudayfa waa maasan yahay Allah sharfo anigu isma lihi xad baa jiro jacaylku uu leeyahay laakiin waxaa jiro xuduudo dadku ay samaystaan ama qofku kaga awood badan yahay dadku way kala nugul yihiin wayna kala xamil og yihiin duruufaha iyo xaaladaha marka waxay ku xiran tahay qofkan awoodaha asaga ilaahay siiyay iyo sida maaragtay marxaladaha uu maro ama uu ku dhex jiro uu wajihi karo sida uu gudbi lahaa ama uu maareyn lahaa tan nugeelkana ilaa xad waxaad moodaa dumarku markasta ragga way ka nugul yihiin waxa keenaya gabadhu inay ka hor guurka ilaa heerka gaartana ragga inta badan u sababtoo ah qofkan marka laga soo tago nugeelka ilaahay u dhaleeyay ku beeran waxa u raacay waxa way dhaqamada qofka iyo siduu ula falgalayo waxyaabaha uu sameynayo siduu maaragtay uu dareenkeeda maxal yiraahdaa u godlinayo ama wax uu sheegayo halkan waxaan isleeyahay marka wuxuu ku jiraa
in wiilashu aysan marka hore maxaa la yidhahdaa ka badbadin oo aysan gaarsiin qofkan heer uu ka maarmi waayo saas lamadana gabdhuhuna laftirkooda inay ku xisaabtamaan isbeddelka markasta oo yacni ma oran karo nuweelka iska dayaan oo dareenku ma jiro batoon laga maamuli karo ma jiro laakiin inay markasta ku xisaabtamaan isbeddelka oo si hadhow beri markuu wax isbeddelaan ama ay wax dhacaan isla dhaawaca maanta aan isleeyahay gabdho badan way la jiifaan uusan u gaarin marka kaliya un qofku inuu ku xisaabtamo hadhow qofkan bini'aadan inuu isbeddeli karo wax kasta ay dhici karaan taa inuu ka xisaabtamo wiilkana sidoo kale laftirkiisa inuu ku fikiro oo yacni maxaa la yidhahdaa isbeddelka nolosha marka labada qofba mar walba inay ku xisaabtamaan isbeddelka nolosha ayaan is dhihi karaa kulley xalka wuu ku jiraa iyo inaan la iska badbadin oo waxaan xadkooda iyo xuduuddooda aan la dhaafin oo maaragtay keliya uun dadku wixii dan guud oo noloshooda ay ku wada maareysan karaan ay isu sheegaan laakiin qofku uusan qofka kala gaarsiinin yacni uu ka dhigin uu gaarsiin heer uu ka maarmi waayo waana ta ugu daran inta badan dee la wada wajaho marka intaasaan soo jeedin lahaa talahaan amaasita farxiyo waa mahadsan tahay anaan jeclaa inaan su-aal kale ku raaciyo oo taas ka agdhow arrinta la xiriirta oo marba soo hadal qaadaan u malaynaya xiisaha inaan qofku xiiseeyo ama berri uu qofkan xiiseeyo kadibna maalmo kadib uu ka niyad jabo waqti kooban gudaheed kadibna laga yaabo in qalbiga ama niyaddu ay istiraahdo qofkaana ka fiican ama wixii kale aad aragtid baa ka fiican oo ka dambeeya iyada maxaa daawo u horta waa mahadsan tahay walaalkay yuusuf inta badan xiisaha waxa waaye waxaa keenaya horta dadka laftirkooda way ku kala duwan yihiin dad dareen ahaan dareenka xiisaha isaga jiro uu ku badan yahay oo iska jecel marba hawo cusub ama qof cusub ama yacni inay isbeddel cusub sameeyaan dad dabci ahaan samaysanka dadka way jirtaa taas marka laga soo tago xiisaha inta badan waxaa keena xiriirada badan waaye qofka hadduu dhowr xiriir oo kala duwan uu sameeyo ama yacni kalsooni fara badan oo inuu hal qof waqti geliyo aysan ku jirin boodboodka taasaa keenayso marka inuu qofka maanta qofkan u arko inuu qof kusoo baxayo uu yahay beri haddana qof kale cusub u barto oo qofka saa u arko laakiin haddii qofku hal xiriir uu intuu sameeyo xiriirka uu ku xasilo waqti geliyo yacni uu isku dayo inuu xiriirka ku beeqaamiyo dareenkiisa waxyaabaha uu bixinayo dhan inuu xiriirka u hubeeyo hadduu isku dayo wuxuu yeelanayaa dareen maxaa la yidhaahdaa uu ku awoodo inuu xiisihiisa ku xakameeyo laakiin markastuu qofka xiriiro badan sameeyo oo markastuu xiisihiisa isbedel ku yimaado siina bato ugu dambeynna maaragtay uu xasili waayo qofka uu hadhow ay sababta inuu meel u qabsado uu waayo marka taasaan isleeyahay cilladda way keentaa ama way sababta farxiyo mahadsan tahay sidaan noogu soo koobtay dadka kale ee soo codsada iyagana kor waxaa soo saari doona maxamed saalax anigu xiriirintan ka shaqaynaya caawa dadka maxamed baa soo qaadi doona qofkii hadlana waxaan codsan lahayn isagoo raaliya inuu hoos u dego si aan khiyaarta kale fursad u siino waxaan kusoo dhaweynayaa oo markaan raba inaan fursad siiyo abwaan maxamed maare oo runtii aan in dhalinyara isagana wax badan ka qoray arrimahan jacaylka lagana yaabo inuu ka mid yahay dadka ku guuleystay xiriirada wanaagsan maxamed soo dhow walaalkay السلام عليكم si fiican ma lay maqlaa yuusuf si wanaagsan ku soo habeen wanaagsan dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa walaalaha sharafta badan oo maaragtay ku wada jira halkan si gaara maxamed saalax iyo yuusuf cabdi aad baan idiin salaamayaa oo ilaa kasoo suurto geliyey barnaamijkan iyo kulankan caawa marka saddexaad waxaan aad u salaamayaa walaashii farxiyo lama filaan oo aan aad iyo aad u salaamayo inkastoo aanan ka soo gaarin barnaamijka bilowgiisii laakiin mar dhexe aan soo gaaray runtiina ah dadka arrimaha qoyska iyo jacaylka aad uga hadlo haddaan tayada usoo gudbo jacaylka iyo kalsoonida iyo waxyaabaha ku taxalluqa xiriirka ka dhexeeya qalbiyada qofka bini aadamka ah hadday noqdaan kuwo guuleystay oo ku dambeeyey dhisidda guur iyo guri iyo hadday noqdaan kuwo aan guuleysan oo
bilaabmaan saldhigga u ah aasaaska u ah waxaa kow ka ah yiraahdaa yani inuu jacayl ka bilaabmo waxaa la yidhahdaa kahelitaanka inaad qof ka hesho ama habdhaqankiisa aad ka hesho ama dabeecaddiisa aad ka hesho ama hadalkiisa ama aqoontiisa ama xataa shakhsiyadda ilaahay u dhaliyey ama quruxdiisa aad ka hesho qodobka labaad ama marxaladda labaad oo aniga fikirkeyga aan aaminsanahay inuu maro waxa weeyaan marxaladda xiisaha la yiraahdo in qofkii aad ka heshay aad xiisayso in aad noloshiisii aad dhex gasho ama cilaaqaad ama heshiis yani cilaaqaad aad la samayso cilaaqaadkaasi ha noqdo mid walaalnimo ha noqdo mid guur ha noqdo mid wanaag ku dhisan oo xataa aan magac lahayn marxaladda xiisaha marka waa tan lagu kala baxo oo inta badan dadku marka ay bannaanka ka joogaan nolosha qofka kale way qurux badan tahay way dhisan tahay way hagaagsan tahay way sharaf badan tahay way qiimo badan tahay laakiin marka ay gudaha u galaan ayaa lagu kala yaacaa marxaladda xiisuhu marka waa marxaladda lagu kala ogaado in waxaanay dhab yihiin iyo inaanay dhab ahayn qofka markuu noloshaadii soo galo soo dhaweysid yani uu noloshaadii iyo waxyaabahaagii oo dhan uu yani gudaha usoo galo laba miduun buu ku dambayn doonaa in qofkaas xiisihii ka dhammaado oo uu halkaas ku gaabiyo xiriirkii uu isagu keenay ama damacii ku jiray ama xiisihii ku jiray iyo in uu marxaladdii ka gudbo oo tallaabada xigta oo jacaylka la yiraahdo uu u gudbo marxaladda jacaylka la yiraahdona waa tan xiisaha ku xigta oo yacni qofkii inaad gaadho heer aadan ka maarmi karin oo aad zaa'id usii jeclaato oo aad noloshaadii yacni agtiisa inaad farxad iyo deganaan ku dareemayso aad aragto marxaladdaasaa waxa la yidhahdaa marxaladda jacaylka marxaladda jacaylka waxaa jira laba marxaladood oo ka dambeeya walow mid ka mida ilaa gows dambeedkeeda ay tahay marxaladda ka dambeysa jacaylka waxaa la yidhahdaa marxaladda caashiqa oo yacni way ka martabad sarreysaa ama way ka miisaan culus tahay tii aan markii hore soo sheegnay ta ugu dambeysa oo gows dambeedka u ah oo la yiraahdo inta badan dadku waxa ay gaaraan marka ay qoys wada dhistaan oo ilaahi subxaana watacaala dhexdooda ubad keeno oo muddo wada noolaadaan oo isbartaan oo caqabado badan oo aanay filanaynin kasoo wada gudbaan oo nololo badan oo adag ay kasoo wada tallaabsadaan oo si wada jira u wada noolaadaan oo ay noqdaan dad yacni dib iyo dheefa soo wada maray awlaad ilaahay dhexdooda dhigay korintoodii diyaarintoodii iyo yacni tababaridoodiina diyaar u ah iyagana aan waxba ka dhinmin jacaylkii ama caashiqii iyaga dhex yaalay marxaladaasaa marka la yidhahda ta ugu dambeysa ah waxaa la yidhahda kalgacayl waa goosdambeedka ama jilibka ugu dambeeya ee uu leeyahay xiriirka ka dhexeeya labada qalbi ee dadka labada qof ee bini aadamka ah ee ilaahay ugu talagalay waa marxaladda ugu dambeysa uguna macaan uguna dhadhanka fiican inta badanna waxaynu aragnaa iyagoo laleeyahay jacaylku wuxuu yimaadaa guurka kadib jacaylka lagu leeyahay guurka kadib wuu yimaadaa oo ka wanaagsan kan aad xiriirka iyo yacni cilaaqaadkan aad soo wada marteen waa kan kalgacaylka la yiraahdo ay labada qof ku nastaan ay ku degaan ay ku raaxaystaan ay deganaan iyo jacayl iyo farxad ku dareemaan marka fikradeyda halkuu ka bilaabmo iyo waxyaabahaas intaasaan kusoo koobaya waqtiga oo yar aniga oo jecel in dad kale waqti la siiyo si ay u hadlaan waxaan kusoo koobayaa 3 qodob oo yacni keeni kara marxalad kastuu ku sugan yahay jacaylku inuu burburo oo aanu sii soconin oo jacaylkaasi uu noqdo mid aan miro dhalin even hadduu xataa miro dhalo aan noqonin mid yacni mirihiisa dhadhankiisa lagu sii waaro ama lasii haysto marxaladda koowaad oo yacni kaa burburin karta ama kaa dayici karta ama kaa lumin karta waxaa wanaagsan aad haysatid waa daacadnimada oo aad ka tagto adiga oo daacadnimada ka taga ama qofka kula soo horjeeda oo daacadnimada ka taga oo daacaddu haddii ay ka dhex baxdo
cilaaqaadka u dhexeeya labada qalbi ee labada qof waxba ma sii socdaan ama dhinkay rabaan ha ka yimaadaan. marxaladda labaad waxa weeyaan marxaladda beenta la yiraahdo, marxalad aad u weyn iyadana ah. haddii labada qof midkood uu yahay qof aan run ka sheegin waxyaabaha uu qabanayo, waxyaabaha uu doonayo, waxa uu dareemayo, waxa uu danaynayo, waxa doonistiisa ah iyo wax kasta oo ka dhexeeya isaga iyo qofkaa kale wuxuu noqdaa wax aan sii soconin xiriirkaa ka dhexeeya noocuu doono ha ahaado. gaar ahaan jacaylku waa waxyaabaha kow ka ah inay dhaawacmaan. marxaladda ugu dambaysa oo yacni uguna muhiimsan waxa weeyaan in labada qof ay ka tagaan xadhigga ilaahay, oo yacni labada qof ay noqdaan keliya laba qof oo ka fikera waxyaabaha qalbigoodu siinayo ama waxyaabaha qalbigoodu yacni u tilmaamayo ama waxyaabaha qalbigoodu jecel yahay, oo ay ilaawaan inay isku dhiirigeliyaan cibaadada, salaada, adkaarta iyo waxyaabaha la midka ah. waana marxaladda ugu muhiimsan. sababta aan dib ugu marsadayna saasay ahayd. haddii saddexdaas qodob marka la waayo, cilaaqaadka idinka dhexeeya noocuu raba ha ahaado ma noqon doono mid sii socda. marka intaasaan doodayda kusoo koobi doonaa. farxiyo iyo tiimkana mar labaad baan aad u salaamayaa. dadka iga dambeeyaan waqtiga siin doonaa. waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام محمد هذا وما سنتا وقتيغاغا waxaan ku xijinayaa Yasir Cabdi oo isaguna cabaarna la joogo. Yasir soo dhow, fikir iyo aragti waxdays. Yusuf waan kaa dhex galay. Yaasir waxaa kaga jira nin la dhaho garad jiro isna abwaana, marka horaan u siiyey haddii aan su-aal la weydiinayn ka soco. Faraxa iyana nagu soo biirtay oo dadka arrimahan iyana aadka wax uga qora ee bulshada, marka ku soco. waa maasan tahay. waa siin doonaa titoreyso Fatima baan ku xijinayaa maadaama wiilasha dhinacooda aan u badanay. Fatima soo dhaweynayaa. soo dhow walaal. Fatima laguma maqlayo, maaraa mar garaacayay isna. Fatima ma ku maqalno. titoreyso Fatima. Fatima ma maqalno. waxaan u gudbinaynaa qofka xiga. waxaan siinaynaa Cornel. soo dhow. waa dhawaay saaxiib magarad. waa salaamaya dhammaan asxaabta meesha ku jirna. filaya inay maqlaysaan. codkayga waa la maqlaa sooma? si wanaagsan. saaxiib waa ku soconaya. niyow barnaamijka waa dhegeysanaya in badan dooda waa ku jiray. dhinacyo badan dadkii intii aan taabanay, dhinacyo badan dadka asxaabtii iga horeysa taabatay. horta jacaylku wuu jiraa, waa sax, wax qalbiyada biniaadamka ku abuurma. jacaylku marna waa dee xanuun, sida marna dee haddii aad guulaysato waa wax macaan oo farxad iyo nolol macaan helaysid. marka su-aalo badan baa la isweydiinaya halkan ka arkayay. marka jacaylka lagu guda jiro lamaanaha waxaa jira marmarka qaar dee qofku inuu xiriiro kale iska sameeyo oo dee qofkii sidaa isku ilaawa ama sidaa buuq ku galo barnaamijyo kale ama dad kale. marka way jirtaa ciladaasi. hablaha iyo raggu waa leeyihiin marka haasaa uu socdo ama xiriirka jacaylka labada qof ka dhexeeya. qofka hadduu dad kala barto waxaa imaanaysa caqabado macnii inuu xiriirku yiraahdo ama qofka iska mashquulo meelo kale ama uu ku mashquulo. xaaladahaas jira. marka way jirtaa saaxiib. marka caqabado badan baa jira oo jacaylka ah oo ka yimaada xagga dhanka dhalinyarta ama hablaba ha ahaadeen ama wiilalba ha ahaadeen. waa jirtaa taas. midda kale waxa weeye dee jacaylku waa saaxiib, waa sidaas aan sheegay. marna waa macaan, marna dee waa kharaar. kolay dee marka xaaladdu kugu adkaato ama qofka jacaylka looga baxo iska dareemi karaa xaaladiisa. midda kale aan ka hadlaya waxa weeye markay dadku guulaystaan dee waxa weeye jacaylka waxaan isfilayaa dee jacaylku wuxuu ku bilowda aniga aan aaminsanahay sida qadiyadayda markii lamaanuhu ay guulaystaan dee ay noqdaan family xaas kale ama ummad carruur iyo waxay dhalaan. way jirtaa sida marka saas isleeyahay dee waxa guul laga gaaraa oo laga miro dhaliyaa mirihiisa la gurtaa. jacaylka marka dee ubad la helo oo loo dhabar adeega caqabado kasta ama wax kasta dhan kasta oo meel kasta ka yimaada lamaanu guulaystaan oo dee noqdaan dad family ah. inta hore dee jacaylku waa jiraa laakiin dee kolay
waa saa aniga aaminsanahay jacaylku dee hadda wuxuu iska noqday berigi hore jacaylku wuxuu iska ahaa wax dee dadku ay isku dilaan oo magaranaysaa taariikho hore jacayl ka qornaa hadda laakiinse jacaylku waa iska khiyaale qof hadda barta arkaysaa ku dhahayo waa ku jeclahay marka dee ma garan karno suu jacaylku isku bedelay marka saaxiib intaasoo kusoo gabagabeynaya waxa siinaya dadka igu xiga jaaniskooda si ay uga faa'iidaystaan waana salaamaya dhammaan asxaabta meesha ku jira dhammaantii waana salaamaya waana mahadsantihi saaxiib aad waa mahadsanta walaalkay corneyl waa ku mahad celinayaa waxaan ku xijinayaa maxamed barwaani intaan gabdhaha siin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله كود جروا السلام عليا أستاذة فرحية لما فلان يمارة محمد صالح يوسف ياسر يقرد فرح يمسكي دمان خيارتك اللي كجرته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام موضوع عاد وحيس بدن واعي farxiyo iyo maare si fiican u sharxeen runtii ana waxaan rabaa inaan laba qodob dul istaago mid waxay tahay annagu dad muslimiin aan nahay inaan laba u kala qaadno si guudba xiriir ka horeeya guurka iyo xiriir ka dambeeya guurka dabcan waana laba xayndaab oo muhiim ah oo mid walba goonidiisa in xaaladihiisa loo ogaado ay tahay waana rajaynayaa dabcan dadka meesha ku jira qaarkoodna waxay noqon karaan lamaane iyo dadka dib ka dhegeysan doonaba qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay hadda hor leeyihiin oo ay rabaan inay nolol dhistaan oo bannaanka ay ka joogaan guurka marka mid walba si gaar u saameynaya ay la tahay intaas waxaa dheer annagu waxaan nahay dad muslimiina oo dabcan marka la fiiriyo ummadaha kale waxaan kaga duwanaanaynaa xayndaabka waxyaabaha naxadidaya diinta islaamka ayaa naxadidaysa halkaas marka la joogo waxaan rabaa inaan ka istaago qofka weli aan guursanin ee hadda raba inuu guursado maxay tahay waxyaabaha muhiimka ah xiriirka jacaylka ah ama nolosha uu rabo qofka jinsiga kale ah inuu la sameeyo maxaa muhiim u ah dabcan waxyaabo badanaa laga qoray diinteena islaamkana waxyaabo badanaa laga soo helayaa dhaqanka bulshooyinka adduunyadana wax badanaa laga soo helayaa marka lasoo ururiyo aniga aragtideeda waxay la tahay waxaan ku koobi karnaa dabcan qofku wuxuu raadinayaa doorasho qofkii nolosha la wadaagi lahaa dareenada iyo waxa aad uga sheekeeyey farxiye iyo maare dabcan akhyaarta kalena waa ku dari doonaa lakiin anu waxaan rabaa aniga qodobada ugu muhiimsan aan isleeyahay marka la joogo marxalada doorashada waa muhim inaad taataabto 3 qodobaan isleeyahay aad muhiim u yihiin qofku markuu doorashada marxalada joogo oo uu xiriir la sameynayo jinsiga kale hadday gabar tahayna wiil hadduu wiil yahayna gabar qodobka ugu horeeya sida diintu tilmaantay waxaan aaminsanahay qofka in lagu doorto diin qofka diinta markaan leeyahayna dabcan sida xadiistii aayaduhu tilmaameenba qofku inuu cilmi badan oo diini ay yaqaano ma ahan in akhlaaqdiisa iyo qiyamkiisa ay qiyam diineed tahay ayaa asaas u ah arrinta labaadna waxaan aaminsanahay inay tahay aqoon yani amar gabadhu ninka ha doorato ama wiilku gabar ha doorto inay aqoon leeyahay ayadana waxaan arkaa inay tahay qodob kale oo asaasi ah arrinta saddexaad ee ugu muhiimsanna waxa weeye dabeecadda oo aan aad iyo aad runtii hoosta uga xariiqaayo waxaa jira kitaabo badan oo aad looga qoray iyo oo luqad walba ku qoran wax loo yaqaano personality styleka ama af carabiga lagu dhaho anmaad shakhsiyaad iyo ama dabeecadaha kala duwan ee dadku waa kala dabeecado kategoriyo kala duwanaa la geliyaa dad isqaadan karaa jira marka qof markuu xiriir sameynayo inuu aad uga fakaro waayo qofkan dabeecadiisu waa qof dabeecadiisu noocee ah si cilmi ahana loo ayaa wax looga qoray inuu marka baaro hadday isqaadan karaan iyo haddaysa isqaadan karinna uu ogaado hadday isqaadan karaan uu hore ugu socdo haddaysa isqaadan karinna markaas inuu ka joogsado dadku aad uma fahansana halkaas marka waxaan aad ugu talinayaa in luqad kastaa lagu helaa ayagoo videos laga sameeyaa jiro ayagoo trainna laga qabtaa jiro ayagoo bugaag ku qoranaa jiro marka qofku inuu raadiyo dadka horta yani caadiga ah oo dhan aadanaha oo dhan dabeecad ahaan sidee kala yihiin marka arrintaas iyadana aaday muhiim u tahay xumaan iyo samaanna ma ahana dadka isqaadashay leeyihiin saddexdaas qodob waxaan u arkaa inay yihiin 3 qodob oo muhiim u ah marka la joogo marxaladda doorashada marka qofka haddii uu fiiriyo annaga maadaama muslimiin nahay qofka
gabadha wiilka marka uu dooranayo gabadha gabar diin leh oo diintana aysan ahayn inay qur-aanka xafidsanto axaadiista xafidsan tahay akhlaaqdeeda iyo habdhaqankeeda iyo hadalkeeda iyo hab socodkeeda iyo hablabiskeeda uu yahay labis diini ah yani dhaqan diini ah guriga kusoo kortay iyo meeshii kasoo baxayso iyo kulligood yani diintii laga fahmi karo qodob waaye arrinta labaad inay aqoon leedahay wiilkuna uu aqoon leeyahay aniga waxaan u arkaa inay tahay shay asaasi ah heerkay doontaba ha gaarto ilaa marxaladda dugsiga sare oo kale waxaan isleeyahay inay tahay muhim labada qofba inay gaaraan arrinta ugu dambeysana ay tahay dabeecadda marka laga soo gudbo waa marka guurka uu yimaado oo labadii qof intaas iska soo fahmaan ay isguursadaan markay isguursadaan kadibna runtii waxaa bilaabanayaa chapter kale oo nolosha ka mida marka waxaa soo dhammaanaya intii hore isbarashadii isla falgalkii dhaldhalaalkii marka nolosha halkaas marka imaanaysana waxaan rabaa inaan tilmaamo xadiis nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wassalaam iyo waxyaaba laga qora siirada nebiga calayhi salaatu wassalaam oo aan isleeyahay furay u tahay dadka qoysaska oo dhan in aad loo akhriyana way tahay dabcan nebiga calayhi salaatu wassalaam reeruu lahaa asaga ayaana qur-aanka sida la tilmaamaya laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana ayaa jirta marka nebigu calayhi salaatu wassalaam qoysaskiisii yani caadi nolol isku wada toosan kuma wada nooleen asagoo ahaa khayru khalqillahi wada ogsoonahay marka waxyaabaha aan aad ula yaabo markaan akrinayana aan aad ula tacajabay waxaa kamid ahaa anoo bug akrinaya waxaan helay maalmaha kamid a mawduuc aan aad ula yaabay oo ahaa mushkilaatun fi beyt nubuwa marka wuxuu soo qorayaa mushkiladihii guriga nebiga calayhi salaatu wassalaam ka jiray ayaa lasoo khulaasay macnaha oo lasoo koobay markaasaa waxaa qoran suuraddan hadda suuratu taxriim ama suuradda loo yirahdo lama tuxarim oo kale sabab nuzuulkeeda wuxuu ka sheekeynayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam qiso xaasaskiisa iyo asaga dhex martay oo xaasaskiisa mid kamida ayuu gurigeeda malab ka isticmaali jiray markuu kasoo baxo ayay xafse iyo caaisha inay ahaayeen filayaan ayaa waxay sameeyeen inay u tashadaan ay dheheen inay yiraahdeen gurigaas usoo maraya macnaha markuu gurigeena imaanayo marka nabigan calayhi salaatu wassalaam ay ku dhaheen aan u tashano marka ay yiraahdeen afka maxaa kasoo shiiraya aan dhahna markuu noo yimaado nabiguna aad u necbaa calayhi salaatu wassalaam in wax laga sheego yani ur aan wanaagsaneyn in lagu sheego aad u necbaa kadibna uu yiri gurigaasan soo mari jiran malabka isticmaali jiray hadda kadib xaaraan ayuu iga yahay inaan isticmaalo marka waxaa soo degtay yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka aayadahaas ilaa 7 aayadooda ilaa laga gaaro casaa rabbuhu an yutalliqakuna azwaajan khayran minkuna muslimaatin casaa an yubadilakuna azwaajan aayadaas oo loogu goodinayo xaasaskii nabiga calayhi salaatu wassalaam in la bedelayo marka qisooyinkaas marka lasoo sardiyo oo lasoo saaro ayaa wuxuu ku gabagabeynayaa haddii aad filaysid guri mushkilad la'aan ah inaad dhisato ha ku tashanin maxaa yeelay haddii guri mushkilad la'aan uu jiri lahaa guriga nebiga mushkilad la'aan noqon lahaa marka qofka waxaa muhim ah markuu guri galaayo uu guursanayo si kastoo isu jecel yihiin si kastoo waqti usoo wada qaateen inuu marka horeba ku talagalo guriga inay mushkilado jiri doonaan u baahan xal arrintaas aad iyo aad ay muhim u tahay oo aan isleeyahay in hoosta looga xariiqo waa tahay kadib marka guriga la tagana waxaan isleeyahay 3 shay oo muhim ah ayaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kow guriga waxaa ku dhisan yahay sida ay maadaama dad badan ay joogaan saddexdaa qodob aan ku gabagabeynayaa qodobka ugu horeeya waxaa weeye danaynta ama ihtimaamka labada qof ay siinayaan oo ninkuna uu xaaskiisa siinaya xaaskana ay ninkeeda siinayso waxaa ka dhalanaya arrintaas kalsooni wax la dhaho kalsoonidaasna waa waxa ugu muhiimsan ee guriga uu ku dhisan yahay kalsoonida haddii labadoodaba ay wada helaanna waxay helayaan liibaan ama farxad ay ku helayaan guurka iyo noloshaas ay ku raaxaysanayaan oo ahayd aayadda qur-aanka intay tilmaamaysay raxmaddii iyo sakiinadii iyo deganaashihii laga helayo aad iyo aad mahadsantihiin waa ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullah